هدانو نهاي إن organization كالتعاون الخيرية إن ضد محسنين أيا نقصو هجاتشي أجاب بس كان يو قلب حفيسات يو معونة كمان هاي إن أنا قدرت كي نقصو هجاتشي رير سعودي رير لبنان رير كويت بها وهالك نقول عينية إن الله صدق هذا عدنا سوق أرسيسن إلى هاي بدل كذا وحخير قبها يدين سوق بيو إن عن لا هاي وحنكور تشينيا وسيرك agabka qaaliga ah ee ugu weyn yahay gaarigu si aynu u sii dhameystirno marka gaarigaas iyo inuu noqdo saacada laga bilaabo gaari dawladdu leedahay ama GT-ya waxaan codsanaynaa labadan aan soo gaaray waa buugi gaariga iyo furihii wax kale oo codsanayno taayadii lagu soo wareejiyay insha Allah inaad isagana u keentaan marka hore idinku soo gaaray insha Allah taala inaad ku soo dartaan baan codsanaa hadii alla idhaa marka waxaan si official ugu wareejiyay madaxa gaadiidka wasaaradda waxbarashada هذه هذا مكان مهد علنية أو كنا نقول ولا وريقي ماشي لو قلت لقينا وكوش قين دونا ururka tacaawun alkhayriya gaadhiga noohada ah ee ay ugu soo deeqeen baska ay ugu deeqeen dadka muxsiniinta ahi dugsiga ay dhigtaan caruurta indhaha baahida gaarka ka qaba haddaba gaadhigaas wuxuu u tarayaa wax weyn buu ka bedelayaa waxa kale ay ku caawiyeen qalab kale oo agab kale isaguna muhiim u ah iyo macallimiin waxaanu leenahay jazakallahu khayr wana soo gaarsiiseen aniguna isla saacada waxaan ku wareejinayaa agaasimaha waaxda dheelitirka waxbarashada oo ay hoos tagaan waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba haddaba fursadda waxaan uga faa'iideysanayaa horta mar labaad inaynu u ducayno dhammaanteen dadkii soo bixiyay sadaqada walaalahooda baahan iyo caruurtoodii baahanayd iyagoo meel fog jooga soo xusuustay ee soo caawiyey waxaanu sidaas oo kale leenahay ganacsatada waddanka joogta iyo qurba jooga meel kasta joogaan iyo dadka reer Soomaaliland oo dhan inaynu hoos u eegno dadkeena baahan markii la qiyaasay waxaa la yidhi dad aan ka yarayn 200,000 oo da'da waxbarashada ku jira ilaa xadaanada hoose ilaa iyo jaamacad oo baahiyo gaar ah qaba ayaa waddankeena jooga laakiin tirada dhigata waynu ognahay dhibaatooyinka ugu badan wasaaraddu imika section dhan bay u samaysay waax qayb dhan bay u samaysay oo hawsha ka shaqeysa waalidiinta caruurta dhalayna waxaan leenahay caruurta iyo kuwa aan baahida gaarka qabin waa isku mid ilaahay baa inagu eegaya sidaynu kuwa ula dhaqanno de ilaahay wuu inoogu naxariisanaya weliba caruurtaadii markay yihiin way ka sii xag jirtaa marka waxaan leeyahay guri aanay joogin caruur sidaasi ama qof aanay ehelkiisa ahayn ma jirto anigu way joogaan qoyska 3 caruura oo paralyzer jiro aan caruurteeda qaar dhaleen waxa jira 200,000 baa Soomaaliland ku nool mid indhaha wax ka qaba mid lugaha gacmaha autism ayay noo buuxaa marka de diinta waa la inoogu sheegay oo intaas sheebana noogu sheegay oo la iscaawiyo oo dadka baahiya gaarka qaba maca heesaheena ku jirtaa ma ogtahay curyaanka bacaga looma waayne aynka waxa loo yidhi kuwa cararaya ladani ku cibro qaateen marka de waxaan leeyahay aynu ku cibro qaadano aynu caruurteena caawino qurba jooga iyo dadka waddanka joogaba wasaaraduna program ay u dejisay gaara golaha wasiirada iyo madaxweynuhuna muhiimad gaara ay siiyeen guddi gaara ayuu madaxweynuhu u saaray oo hawsha u qaabilsan dawladda inay hawsha ka shaqeeyaan waxa lagu balansayay sanadkan in miisaaniyadda in go'aan loo qoondeeyo la raahdo boqolkiiba intaas dawladda gaari doonta laakiin boqolkiiba intaa in loogu shaqeeyo dadka baahiyaha gaarka qaba kuwa waaweyn iyo kuwa yararba